شيخ البلد كان مقالة بورما شيخ عبد الله شيخ علي جوهر وحاو كلان كان لقاته xildhibaanadii ugu badnaa ee golaha deegaanka degmada Boorama ka socda ee ku kulma kulanno ka baxsan kalfadhiyada caadiga waxaana xusid mudan in kulankan oo ku soo beegmay maalmihii ugu dambeeyay bisha Ramadaan uu xambaarsan yahay ujeedooyin dhowr ah oo mid ugu horeysa ay tahay cafis iyo saamaxaad dhex marta xildhibaanada kulay dadka cidda kuugu xigtaan baad ducaysata adiga cidaan walaalahan maanta wax hoos dadka soo shaqadan hay'adda kulay waa bil raxmadeed waa bil damdaaf waa bil naxariis inaan isqafino mas'aalo xaalino isku noqono dantiina loo doortay degmada شيخ البلد كبورما شيخ عبد الله شيخ علي جوهر أي xildhibaanada ku dardaaray in danta guud ay wax walba ka hormariyaan uma bisla ilaa imkada wali nidaam loo bisla laakiin dadka inay ku hagaan doonayaan waa jirinka dulqaad inuu yeeltaan dhexdiinan ee bisaaminsanata danta iyo maslaxa wax walba inaad ku baasgalaysaan danta iyo maslaxada ummadda aad ku baasgalaysaan ummaddu waxay idinka sugaysaa والله هذا من شهر الحية وضل السياق إنما لكن واحد قبضه ومضى وقفت يا قيمة maayirka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in marar badan kala aragti duwanaanshaha xildhibaanada ay jiraan dad u micnaysta in khilaaf jiro balse xildhibaanadu ay yihiin kuwa iyagu isku ehelaa xarakasta inta ku jirto un baa isku ehel xarayna ku wada jirnaa in aynu ku sifowno wanaag iyo wax wanaagsan oo la nagu tilmaamo oo bulshada u hooseedna wax waajiba oo laga yaabo mararka qaarkood inaan fikir ku kala duwanaan oo laakiin dadku ay u arkaan in golo is khilaafsan yahay haddii aad aragto meesha khilaaf inuu jiro shaqa ka socota muhiimad weyn ku fahmaan laakiin dadka hadalka sida xun u turjuma hadalkooda raacmayna kuwa isku dafeenayna inta wanaagsan oo man ku raacayna hadii la ilaalo عبد الله علي يوسف هون كيبل تي في بورما.